xubno ka mid ah dhalinyarada u adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha oo muddo isbuuc ah ku sugnaa degmada Garbaxaare ee gobolka Gado ayaga oo ka waday gurmad gargaar ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb qaadatay soo dhaweynta ayaa dareenkooda muujiyay waxa ayna bogaadiyeen hawsha dhalinyarada ay u wakiishteen taas oo ay ka wadeen degmada Garbaxaare ee gobolka Gado. ugu maanta halkan waxa uu maanay inaan soo dhaweeyno arday ka tirsan ardayda bahwadaha waxbarashada aan ahay kuwaas oo kamid ah adeegayaasha bulshada kuwaas oo run ahaantii qabtay hool mudan in la qabto adag tahay oo dad arday inay qabtaan dad ayaga ka mudnaa inay qabtaan aysan qabanin haddii aan maanta dhaho hawsha qabtaan halkan ka qeexa ama ka faahfaahina wax la soo koobi kara maahan mar labaad mar saddexaad waxaa leenahay soo dhawaada waa maanta halkan isku yimaadey dhalinyaro jaamacada kala duwan ka kala socoto oo yacni social workers ah kuwaasi oo isbuucyadii la soo dhaafay tabarucaad u aruurinayay walaalahood haraadiga abaaraha iyo mahadooyinka ay hareeyeen gobolada abaaruhu ay ka dhaceen kuwaasi oo yacni u aruuriyay lacago sidaas daraadeed dad ay u wakiisheen ayaa wixii aadeen gobolada qaar sida gobolka Gado kuwaasi oo maanta magaalada dib ugu soo laabtay ayaa maanta halkan ku soo dhaweynay halkan waxaan ku soo dhaweynaynay saaxiibadeen walaalaheen oo nagu matalayay gudiga oo abaaraha oo Gado ayaga soo dhaweynayna maanta oo hawlii xagga u tageen iyo wixii ummadda Soomaaliyeed ka aruurinay gaarsiiyeen aad u mahadsantiin saaxiibayaal shaqo fiican qabateen waxa ku dhiirateen wax dad badan ay ku dhiiran waayeen idinka sumcad badan idinka magac weyn idinka weyn yacni oo dalka magac fiican ku waxay ummadda ugu danqan waayeen idinka arday marxalada adag maraysiin ugu danqateen dadkiina u caawiseen marka dhammaan ardayda jaamacadaha iyo bulshada Soomaaliyeed oo wax la soo baxday oo anaga ka mid nahay aad ugu mahadcelinaa waxa la saaxiib soo dhawaada aad u mahadsantiin shaqo fiican qabateen gargaarka ay gaarsiiyeen dadkii ay abaartu saameysay ayay muddo isbuuc ah iyo 4 maalin ka wadeen dhammaan suuqyada iyo wadooyinka magaalada Muqdisho. Cabdiwahaab Suudi Nageey oo matalaya ururka dhalinyarada u adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha ayaa ka warbixiyay xaaladda abaar ee ka jirta degmada Garbaxaare ee gobolka Gado. waxa uuna sidoo kale sheegay in ay ka go'an tahay u gargaaridda dadka ayna sii wadi doonaan gurmadka gargaarka abaaraha. annagoo matalayna guddiga adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha oo arday ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ka barta cilmiga adeega bulshada ee loo yaqaan social work oo 12 maalmood ka waday wadooyinka iyo suuqyada magaalada Muqdisho dhaqaale aruurin ay arbacadii la soo dhaafnay gaarnay degmada Garbaxaare ee gobolka Gado. ruwaantii halkaas muddo isbuuc aan ku sugnayn xaalado kala duwan aan soo aragnay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee duleedka degmada Garbaxaare ku sugan waxay joogaan hadda 6 goobood goob cusub annaga asteynay 5 goobood way naga horeysay dadkaas xagga ku sugan waxay ka imaadeen ilaa 20 deegaan oo kala duwan oo aad u fog ruwaantii waxa arkay xaalado kala duwan hooyo caruur u dhabarka ku sidata dhowr maalmood 7 maalmood 4 maalmood 3 maalmood kala duwan oo soo lugeynaysay oo waxay cunto iyo waxay cabtay aadan haysanin markay aragtid waxa waay xaalad aad u adag ruwaantii dadka markay ay meesha imaadeen gurmad ku filan ma aysan helin oo annaga markii aan tagaynay gurmadyadu ay bilaabanayeen kuwana way naga sii horeeyeen haddana sidoo kale gurmada loo baahan yahay dadka xaggaas abaaruhu ay saameeyeen oo duleedka degmada Garbaxaare imaado waxa ku haysata nolol adag markii bini'aadanimada la fiiriyo as leedahay noloshan qof inuu ku noolaado way adag tahay marka dhalinyarada gaar ahaan maxaa la yiraahdaa dadka dhalinyarada wax baratay waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan gurmadkaas ee sabaabulaan sideenoo kale dhalinyaro kale oo naga horeysay oo gurmad sameeysan ayagana way jireen guud ahaan bulshadana waxaan ugu baaqaynaa inay wixii awoodaan oo karaankooda ay uga qayb qaataan xaaladaas abaareed dadkeenu waxay u baahan yihiin gurmad qof walba wuxuu awoodo ha bixiyo xaggaas waxaa ka jirta nolol adag oo runaantii markii aad tagtid aad iskula yaabayso nolosha annaga maanta aan ku noolnahay markii loo fiiriyo marka walaalaheen aan u gurmano guryaha aan ka soo baxno iyo qabowga aan ku jirno qorraxdaas iyo walaalaheen dhibka haysto aan la tagno aan u gurmano qof walba $1 oo bixiyo magaaladan dad ku nool iyo guud ahaan dalka iyo diyadiisa inta Soomaali jirto hadii ay bixiyaan dadkaas way badbaadi kartaa xagga ay ka badbaadi karaan laakiin waxa waay noloshu waxbay isbedelay sameyn kartaa marka waxa ugu baaqaynaa in laga qayb qaato aad u mahadsantihiin